fadeexad iyo ceeb kale ayaa ka dhacday xalay hotelka la yiraahdo Ileed oo Muqdisho ku yaala. Sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska ay arrintaasi ku lug yeeshay, laba dumarna halkaas ayay xalay isu garaaceen iyaga oo midba midka kale uu xigsanayo nin la sheegay in uu hotelka ku sugnaa. Sida ay wax u dhaceen, faafaanidii ugu dambeeyay iyo saraakiisha ku lugta yeeshay ee halkan idinkula wadaagaya. Soo dhawaada si gudbiya muuqaalkeena share gareeya la gareeya. Hotelka la yiraahdo Ileed oo ku yaala Muqdisho waxaa ka dhacday arrin aan rabo in aan si kooban idinku sharaxo oo cayb ah, una baahan in farta lagu fiiqo. Ragga ku lug yeeshay ciidanka ahna tallaabo laga qaado, saraakiisha hogaaminaysayna cadaaladda la horgeeyo. Labadan dumar oo la sheegay inay ahaayeen laba gabdhood ayaa isku qabtay nin la sheegay inuu hotelka ku sugnaa oo mid kamid ah xiriir u kala dhaxeeyay, mid kalena xiriir u kala dhaxeeyay, laakiin hotelka ay ku wada kulmeen. Waxaa meesha ka dhacay taag iyo gacan ka hadal. Labadii gabdhood ayaa isgacan qaaday, waxaana xogtu dadka qaar ay inoo sheegeen in mid kamid ah la lagday oo halkaasi lagu garaacay. Durbadiiba waxay telefoon u dirtay mid kamid ah saraakiisha booliiska. Booliiskii ay wacdeen wuxuu sii wacay taliyaha ugu sareeya ee booliiska gobolka Banaadir, ninka la yiraahdo Macalin Mahdi oo aad u wata ciidamo tiro badan oo dhig la qabta lahayn ayaa goobta tagay. Waxayna wararku sheegayaan in halkaasi ciidamadu ay ugu gacan qaadeen gabadhii kale ee gabadha kale lagdanka ku sameysay ee dhulka dhigatay garaacday. Goonka ayaa laga jibiyay gabadha kale. Sida warka ay sheegayaan, dhiig ayaa laga keenay, si xun ayaa loo qaraacay. Taasna waa wax ka baxsan sharciga ciidan ee booliis loogu talagalay. Booliisku sharcigiisu waa in uu ka shaqeeyo amniga, in uu oobi ka qoraa dadka is haysta, sharciga waafajiyaa, isla markaana sidaas lagu kala saaraa. Ma dhicin oo mid kamid ah ay ciidanku xigsadeen oo telefoonka u dirtay. Waxaan la sheegay in ka hor sida dadka ay tilmaamayaan la is haruufay oo aan fahamsanin waxa loola jeedo, taas oo keentay in gabdhihii ay isgacan qaadaan. Taliyihii booliiska ayay soo qabatay kaamirada isagoo sii galaya oo cariisan weliba, iyo ciidamo kale uu wato oo hubabka culus wata, kuwaas oo usii daadanaya hotelka si meel weerar lagu soo qaaday oo cadow lagu weerarayo oo kale. Haddaba ma ahayd Macalin Mahdi iyo ciidankiisa inay u kala saftaan laba gabdhood oo muwaadiniin ah oo Soomaali ah oo isgacan qaaday, mise waxay ahayd inay sharciga labadooda waafajiyaan oo ay xiraan, isla markaana si sharci ah loo kala saaro? Aragtidaada qaybta hoose ka dhiibo. Booliiska gobolka Banaadir xaalkiisa halkaas ayuu kusoo biyashubtay. Halkii uu ka shaqeyn lahaa sugidda amniga, wuxuu lagu hala galay u kala safashada dumarka, kala eexashada dumarka, iyo qaraacidda iyo goonka jibidda mid kamid ah gabdhaheena sharafan ee Soomaaliyeed. Haddaba haddii booliiska uu gacan qaadayo, gabar goonka ka jibinayo, dhiig ka keenayo, yuu rabaa in uu amnigiisa sugo oo uu u shaqeeyo. Haddaba tani waa in la furaa bug wada xisaabtan ah oo Macalin Mahdi iyo xirtii xalay sharciga la waafajiyaa, sababtoo ah sharciga cidna kama sareeyo. Haddii aad tahay booliis, haddii aad tahay military, haddii aad tahay shacab, sharcigu waa in ay u sinaadaan. Haddaba fariintan waxaan rabnaa inay abuurto isbeddel oo lala xisaabtamo raggii xalay Jabaanka oo kale gabadhaasi ugu dheelay, ugu ciyaaray, gabadha kalena u hiiliyay ee gabadha kale goonka ka jibiyay. Waxaan rajaynaynaa inaad muuqaalkeena sii gudbisaan. Salaamu calaykum.